أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا ليال سومالي ميل كتود جوجتان waxaad iga guddoontaan salaanta islaamka xaqa kadib maanta waxaan rabaa inaan bal soo gudbiyo aragtida ku aadan xaaladda maanta ay ku sugan tahay jigjiga Soomaali galbeed Soomaalida Ugaadenya iyo Jawuxo qodobka kale waxaan rabaa inaan aan istul taago siyaasadda global internationally iyo Ethiopia meesha ay marayso iyo xog lagama maarmaan ah rabaa inaan u soo gudbiyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay Ethiopia waa tuma flash ma maqasheen wax leeyahay flashiintaasi waa Israa'iil waa Yuhuud iyo xiriirka ka dhaxeeya iyo gabagabada oo raba inaan dhaho waa maxay xalku iyo wax ummadda la gudboon aan soo noqdo marka waxaa jira xilliga 90 laga soo bilaabo nidaamkii jiray gumaysi Ethiopia on ka soo bilowno Zeenaawi iyo nidaamka hadda jira habka ay dadka intiisa badan ee shacabka ama odayaashu horta waxaan marka intaana faalada gelin waxaan rabaa inaan laba u kala saaro ummadda Soomaalida galbeed ama Soomaalida Ugaadenya labaan u kala saarayna shacab weyne isugu dhex jira odayaal dhaqameed iyo dhalinyarada iyo culamaa diinkii shacabkii ummadda ku noolaa iyo kuwa gobonimo doon ah marka duruufaha loo ogol yahay shacabka iyo duruufaha aan loo ogolayn ayaa waxaan ku soo ururinayaa odayaal dhaqameedku masiirka ummadda markay lama taabtaan noqoto dhammaan odayaasha dhaqanka ee ummadda Soomaali galbeed ama Soomaali Ugaadenya say u tahay bay u goostaan taa way ku mahadsan yihiin waxaan xuseynaa taas aan oola jeedaa oo raba hal tusaale inuu ugu filan tahay nidaamkii 90 iyo 90 isbedelkii ay ONLF nidaamkii dawladda ku dhisatay odayaashii dhammaantood waxay isku raaceen in dadkaas afti xurriyad laga qaado oo xoroobaan hatta marka waxaan ka wadaa sidii oo kale waxaad moodaa marka maantana maadaama ajandayaasha gumaysigu sidii loogu talagalay u socdo ifafaalaha iyo waxa inoo muuqda ayaa saa laakiin ku daygan waxa lagama maarmaan ah oo gumaysigu lagama maarmaannimadiisa u arkaa inuu culeys saari doono haddaan intaa ka gudba aan u soo noqdo marka siyaasadda xaaladda maanta jigjiga ismaamulka DDS ee gumaysigu waa isla ajandayaashii gumaysiga waxaad moodaa in xaaladdu ay cakiran tahay oo Ethiopia xaaladeedu cakiran tahay meeshan marka Soomaalida la leeyahay ee jigjiga ee ismaamulka Soomaalida la leeyahay sababtay xilligii Ethiopia oo hadda muddadii 6 sano 2018 dagaalama dhamaata ah uu ka soo jiray Israa'iilkii baa warka maxaad moodaa qoomiyadii saddexda ahaa ee Tigray Oromo iyo Ahmaro inay maanta Israa'iilkii ay beesha caalamku fariin u soo gudbisay weeyaan waxa gilgilahaya Soomaalidiina marka waxaan ka wadnaa boqolkiiba 25 ba ya ummadii Soomaaliyeed kililkii ay dhihi jireen kilil 5 iyo nidaamkan la leeyahay boqolkiiba 25 ba Ahmara marka taa macni marka waa aragtida u gaarka ah ee barbar socota nidaamka BB ee uu kaga duwan yahay horjoogaha ama wakiilka gumaysiga oo ah pro Ahmar pro Oromo jira pro Tigray baa jira waxa sheegaya wakiilada gumaysigu waxay noqdaan kolba ku hayo marka ninkii Ahmara ay wakiil soo dirsatana wuxuu noqonayaa waa pro Ahmaris waa Ahmarism weeyaan
كي تكري لا شقينا هنا برو تكري بو نقونيا كي أورما لا شقينا هنا برو أورما نقونيا مركا waxaa ka wada ajandaha meesha socda waxay tahay ifafaalaha soo socda saldhigeedii weeyaan marka waxaan ka wadaa waxaan kala saaraynaa nidaamka odayaal dhaqameedku oo aan dhihi karo kaalintoodii way qaateen ifafaalaha hadda inoo muuqdo haddaan intaa kaga gudbo siyaasadda xiriirka la leh ee global ama international taa waxaan ka wadaa Ethiopia maanta culeyskii ku dhacay cunaqabatayntii macnihii la saaray IMF iyo World Bank dhibaatada Ethiopia qabsatay ee xaggii nolosha ahaa waxaad moodaa inay hogaamiyihii Ethiopia BB Abiy inuu fashilan yahay sababtoo ah waxa weeye international community-gu himiladooda fog ee global international community marka la Mareykanka siyaasadiisu danaha uu maray Ethiopia ka leeyahay waa istaraatiijiyad fog oo qodo dheer oo maxay waxaan kaaga wadaa Ethiopian aad maqlaysaan waxaa jira himilad la rabo oo istaraatiijiyad oo 100 sano ah inay wadanka Soomaaliya ay iyadu ay qabsato la wareegto taa marka waxa weeye kolba meel bay maraysaa marka maanta waxa soo ifahaya shirka aad arkaysaan la leeyahay qoomiyadaha Ethiopia reconciliation wax la yiraahdo wada hadal ha dhaco oo heshiis ha dhaco la leeyahay waxaa loola jeedaa in nidaamka lagu soo celiyo qoomiyadda Axmaarada oo dhanka kalena noqonaysa waxaa jira nimankii falaashada la dhihi jiray asalkooda Israa'iil ah Ethiopia ku noolaa weeyaan waxaan la leeyahay 25% Ethiopia maanta inay falaasha noqoto ya ayaa loo socdaa waxaan soo qaadanaynaa marka xiriirka Ethiopia iyo falaashada aan qodobka ka sii xusay waxaan ka wadaa aqoon intee la eg baad u leedahay Ethiopia weeyaan shacabweynaha Soomaalida waxaan idin sheegayaa waxaa jira qoomiyad Israa'iil oo Ethiopia ku nool oo falaasha la yiraahdo kuwii waxaad moodaa istaraatiijiyadda fog ee badda Soomaaliyeed ee waayahan laga sheekeynayo himilooyinka istaraatiijiyadda fog ee Israa'iil ay Carab ku fidisay inay Carabi maanta ka aamusto dhibaatooyinka iyo xasuuqa lagu hayo reer Falastiin waxa sababaya isballaarintan oo ay ka dhabaysay ay leedahay Great Israel baan sameynayna ayaa meeshana waxa la sheegayaa Great Ethiopia ayaa iyadana soo socota waxa uu heelinaya maanta deetada ama deetada ku jirta 19,000 oo ciidamada AMISOM ama ATMIS ayaa Soomaaliya u diiwaan gashan maanta oo ka hawlgalaya oo Ethiopia ka mid tahay ya ATMIS kaas waxaa jira xaruntii qaramada midoobay ee Soomaaliya waa xalana weeyaan xalana waa saldhig oo ay United Nations ay iska leeyihiin siyaasadii markii laga soo falaxashay culays la saaray waxaa jira wax la yiraahdo counterinsurgency wax la yiraahdo oo barnaamijka argagixisada dirka caalamiga ah ee ajandaha reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa wuxuu yahay marka unugyada lagu beeray awal horeba lagu beeri jiray sida hadda Itixaad oo kale lagu beeray ee la rabay in lagu buriyo onalef ayaa waxa weeye ururada dhaqaaqa oo sidaas hadda waxa weeye dhalinyarada shabaab ee dagaalamaysa iyo ururada la sheegayo ee caalamiga ah baan la diriraynadaas waxa weeye marka way iska cadahay in ay imaaraadku uu buli yahay bulidii Mareykanka yahay bulidii Ethiopia yahay ay reer Yurub u sameeyeen maraakiibkii dagaalkana inay ku soo jiraan ajandayaashii istaraatiijiyadda lagu soo dhexgelina
سياسة دي صومالية إلا خلخل جلية ولا ولول جلية أدركتان نظام كان لليه ديمقراطي هذا كون ان انير الليتل بيد ايه هجامياشي اما مدحوينها اما رئيس الوزراء الصومالي انير الليتل بيد waxa fahmayna waxaad moodaa culays in lagu saarayo hadda waxa dhamaatayba kaalintiini haddana waxa bilaaban doona ajendayaal u ololeynaya in nidaam doorasho la rido meesha laga saaro oo kii inir fahmaba waxa la dhigi waa lagu bedelaya oo waxan dimuqraadiga u sameeyay waa sida iyagana asalkoodu maxay tahay marka in geeskan Afrika ee khayraadku ka buuxo Soomaaliya ee shidaala sidii awal horeba Arab loo qabsaday Israa'iil loo qabsaday ee loo qabsaday Falastiin loo qabsaday Soomaalida ogaadeen iyo Soomaaliyana la rabaa in loo qabsaday Soomaaliya hataa sidaan u fadhiyeysaan idinka idin taala mustaqbalkiina maanta mugdi buu gelayaa marka taasna waxa weeyaan waxa ku tala gashaan in Ethiopia iyo Israa'iil u xiriirka ka dhaxeeya ay yihiin qolaliyaada falaashin oo 125 kan aad arkaysaan riwaayada ee jigjiga ka dhacaysa waa saas loo ogaado ان waxaan rabaa marka xaaladda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya waxaa jiray halgan qalin iyo qori waxa 30 sano ayaa 10 la siiyay Ethiopia maanta halgankii hubaysnaa hadduu socon lahaa damaacigani ma jireen mar hadduu halgankii hubaysnaa usan jirin waxaan rabaa marka inaan u sheego kuwan iska dhaadhicinaya inay iyagu ay yihiin ee la damaacinayo ee la leeyahay ONLF baa dibadii lagula soo hadlaya waxaan ka wadaa ONLF nin isaga gumaysi Ethiopia u galay oo Portugal iyo electionkii daba cararayay ee markay galeen la sii qaybiyo oo la sii kala qaybiyo la sii kala jijibiyo ma matalo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya aragtidiisuna la joojiyana banaan la jiifiyana ban kuwaas marka magaca aan siinaya waxay tahay marka waa kuwa karti badan oo guuldaradoodu guul u yaqaan oo guuldaradoodu loogu sacabatumahayo oo maxaan ka wadaa hogaankii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya ee ku halgamayay mabaadidiisu ahaa in qori iyo qalin lagu halgamo ayaa waxay si dhib yar u dhaheen xabad joojin hal dhinaca oo la joojiyana banaana sida awgeed markii ay halgan ku jiraan kartidoodana waxay hayaan in loogu sacabatumo markii ay guuldaradoodii ugu magacdaraan waa guula loo sacabaynayo ma matalaan waa inay dambigii ay qadiyadda halganka ka galeen ka soo noqdaan jabhadana wadaniga xoreynta ogaadayana waxa la gudboon iyo shacabweynaha Soomaalida ogaadaya maanta marxaladan aan ku jiro inuu shir qabsado istaraatiijiyada fog ay leeyihiin Ethiopia iyo dadiyaasha Mareykanka iyo Israa'iil ay soo wadatay badii casaaye berbera ee khaatinkuna ay imaaraadku yihiin waxaan filayaa marka inaad sawir toos ah ka haysataan sida awgeed waxaan ilaa soo noqdo wanaagsan maanta fadhiga laga kaco xaaladdu meeshaas ay maraysa gumaysiga madow Ethiopia ha dhaco Soomaaliya waa xoroodo soo noqdo waa Axmed Sacaad wa salaam calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh